إلى المال مدي الله يا أنا سكت قصة إلهي قدر سكت خيسة يعني يا مدي الله يا أنا توقصة إلهي قدري قبل شقيسة يساقها يعني قاعد إحنا سكاي شقيسة ناي ما تاني المهينا مدي الله يسر عمل مدي الله يعمل عنا قني إله ربي الرحمن وإيجاده إله وإيجاده إله ويكلمه ربي الرحمن ويكلمه بينه ما ويكلمه. السلام عليكم walaalkay hooyada ooynaysa uma ooynayso lacag inay ka rabto nafteeda halis ku jirta marka fariinta ay ku soo gaarto fadlan sii gudbi dhegta dawladda iyo indhahaba u saar ugu dhibci meesha ay mudanta gaarsii hooyadan waxay kaligeed badbaadisay 300 oo askari oo qaylay oo niman shabaab ah midna bastoolad wada midna rabay bambo inuu ku tuuro ciidanka guri ay degantaa la soo dhaxmaray kii bambada ku tuur rabay kii kalena albaabka taagan yahay iyada inta soo oroday ayay isku dhigtay bambadii oo ka taraaraxday waxay ku dhax qaraxday gurigeedii gabar iyada ay dhashay ku dhaawacantay kii bastooladahana wuxuu nafta dhaafiyay markuu ku qalqalay gabar kale oo guriga joogtay kadib rag waa baxsadeen waxa badbaaday askarteena sharafta badnaa ee qaylay markaas dakanay qaaday ma salaad talii horena wasuuda gabadhan xogaa yar wax iskugu aadiyay mahad waa baxay hadda banaan cid la jiifta laba guri dhaxdooda jiifta hooyadan hadda تلفون كستو أي قادته وعلى صوعة هنجبات وحاوي يدا إيه مدحوينها اسكو مدواي يعني إن نفط لا دافي ولي أيدا أيا أقدر نصلته أو حد يرجلني شعبك إن اسكو تشتان أو يا شبابك قبتان قف كفولات كهاي لو يركل أو لسدي كري قف هبل بري لحظة وحصل له سمي أيا عاو حيلada نفتي المهي هلسا كجرنا يدا أوين عشان لا lacag cid ka dheeranaysa malaha waa iskaga baahantahay waxa awood u dir numberka iyada sheegay doonta laakiin dawladda waxa ugu muhiimsan aan rabno waxay tahay inaad gaarsiisid caawa banaan cidla laba guri dhaxdood ayay ku jiftaa waa hooyo ilmaheedii iyada halis ku jirta waxay kaloo leedahay ma shaqaysan karo hadaa suuq aadi laha soo xamaal laha waa li dila ilmahan hadaa ani ka dhinto khatar waay oo qof ii gorinaysa malaha sababtoo aabahood ma joogo agoon waay hooyadan hadaan wax loo qaban sidee berito shacabka Soomaaliyeed loo dhahaa nala shaqeeyo shabaab sheega adeer cid sheegi karta mala markaa waxa meesha ka cad waxay tahay dadkii la dayacaaba koow gabadhan wax u qabta dawladda isku sheegaysiin kumanaan kuna xaflad ku qabataan ee guriga dajiya meeshana ka wada amaankeeda suga waxa way kulan kasta ina ka wacdiina ahayd dhahdaan hablayadan waadka noloshaan ay ku jirtaa shaqadan ay qabatay darteed shacab uu soo sheegay shabaabka waa la guuleysan laha waxa meesha mujaamala ku haysiin Soomaalinimo haday jirta caaw Soomaalinimo haday jirta insaannimo haday jirta hooyada nafteeda hala badbaadi فرينتا إلى قطبية إلهي درتي السلام عليكم. إلى المال مدي الله يا أنا سكت قصة إلهي قدر سكت خيسة يعني يا مدي الله يا أنا توقصة إلهي قدري قبل شقيسة يساقها يعني قاعد إحنا سكاي شقيسة ناي ما تاني المهينا مدي الله يسر عمل مدي الله يعمل عنا قني إله ربي الرحمن وإيجاده إله وإيجاده إله ويكلمه ربي الرحمن ويكلمه بينه ما ويكلمه منصر ولا الكي فدي قعوة كبريا يا قبر ولا شارع ودي ما تيسن منصر وكتوه دل يدبت أنت جوكت كو حرق يورجلي ولا الكي عطا حتى قف وذكر حمر يقدح بحنا حتى دان هيرو حتى واروا عليه وإلى مالك السمكار مسوقو سكر كي مسوقو استلي وصوب عيا أنت تاس إذا بدنا قلوا إدلي نك دلك يجبحي كره يجبحيه نك الماء مسؤول دول قال كره يقال قولوا قالوا يصوب بحي بش يستحب قال يقول طوى نكي أو مسؤول دخال كرمو بالك يوصل طورة قفت طورة يجيء ترى طبعا هاي قبر صوماليات وشقي سنيسو وبكاره وحمال نيسو وعروت جف يجري وقليسو وعدكو دقيق ما أنت أيسن لهن هاي هذا مش شقي سكري ميل ما أدي كري كروي كريدة تأيد دجسين عم ألعب بناك اللي وصو فرجي يعني ميل ما أدري هاي هو دارنا عليه وجاجس ما Soomaaliyeed waa raaxaysanahay waxaan dhahay dib waa ku deey rafaad waa ku deey silacna waa ku deeyaan dhahay garabkaada maanta dawladda ku joogto waxa ka cabsanaysid malahan dhahay hadda ana maanta Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Bare dhibaatada ay ugu deeysid mal arkaa maama Soomaaliyeed oo ku difaacdo maama Soomaaliyeed kale oo dalkeeda difaacdo mal arkaa ilaa mal arkaa waxa lagu leeyahay maama farxiyay banaanka oo uga tagto dawladda oo dhibaatadaas ku dhacday taas yay dhicin adeero waa ku baryaa madaxweyneen ilaahay ka dhigi mas'uuliyadda adaa qaaday maanta banaankaas leeyahay gudil adaa mas'uuliyadda qaadayo ee mudan adaa maanta gadaashaada la soo maray caruurtan aday bar ay ku qabsanay bar sidaas kor fadhiisaysiin anagana waa sidoo kale waa ku dhintay
saddex boqol gadaal ay ka maraysa ciidamanka aan ilmahay isku dhignay saddex boqol oo qofood aan nafteeda u dhigtay aan bad ilaaha wax badbaadiyo aan isku day inaan badbaadiyo aan dhaabac ku ahay gabadhii hadda ii soo bixayso 12 jir lugaha ebre ay tahay gurigay dhex fadhisaa anigii dhaabac aan hayo markaatiyaa ka tihiin gurigii maalintiisii loo soo geli mas-uul dowlad maalintaas ay ugu dambaysay waxaan kaa rajaynaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud 8 bilooda lagu leeyahay gurigan dowladda ma bixinin lacag waa lii soo buriyey hadda ablii dhooyaaba adaa rafaadkaas gashiye dadkeega dhan waxay dhaheen adaa rafaadkaas gashay adaa dulmiga samaysay kuma naqaano baahi u dhimo meelaha lagugu dilo shaqo ma ku leenayaa lay dhahay wiilkii Soomaaliyeed shalay aan u dhintay